Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada saaxiibayaal, waa mar kale iyo muuqaal kale. Muuqaalkan maanta waxaan ku baran doonaa sida aad u samayn lahayd WhatsApp linki. Haddaba WhatsApp linki laba nooc ayaa loo sameeyaa ama laba qaab. Mid waa application, midna waa qoraal aad qoraysid. Labada nooc baan ku tusi doona maanta. Marka ay la soco. Haddaba hadday tahay markii hore soo booqato channelkan, fadlan subscribe saar, notification-kana furo si muuqaal walba cusub kugu soo dhaco. Sidoo kale muuqaalka like saar si uu gaaro dad fara badan. Aad iyo aad baad mahadsantahay. Kusoo dhawaad muuqaalka faahfaahsan. applicationada isticmaali doona waxaa lagu magacaabaa click to chat. Marka click to chat ayaad qoraysaa marka soo gasho Play Store-ka. Click to chat. Marka click to chat saan application waa kan. Marka application-ka Play Store-ka aad keenaysaa way soo degsanaysaa application-kan. Haddaba waxaan ku horeynaynaa qaabka koobaad oo waxaan soo furanaynaa WhatsApp-ka. kadibna qofka korkiisa ayaad ku dhufanaysaa qofka aad rabto inaad ku samaysato, inaad qof soo gashaa si aad u samaysato. kadibna waxaad qoraysaa htt. iska ilaali inaad far waaweyn ku qorto. haddii aad far waaweyn intaad ku qorato wuu kaa khaldamayaa. marka waa inaad far yar aad ku qorataa. htt ayaad qoraysaa. markaad laba t qorto b oo b for ben ah iyo laba dhibcood iyo laba slash. waxaad qoraysaa w a ayaad qoraysaa, haddana dhibic me ayaad qoraysaa. marka intaas sidaa qorto slash ayaad raacinaysaa. markaas sidaa qorto kadibna furaha wadankaaga ayaad gelinaysaa 252 oo kale oo furaha Soomaaliya ah. haddaba aniga hadda Ethiopia ayaan joogaa, marka furaha Ethiopia ayaan gashanayaa. kadibna lambarkaaga ayaad sii raacinaysaa. markaas sidaa u raaciso lambarkaaga kadibna hoos ayaad u yardegaysaa. marka halkan waxaad rabtaa aad ku qorsanaysaa tusaale ahaan welcome oo kale. dadka kolbaad waxaad rabtaa dee ama soo dhawaada waxaad rabtaa ku qoranaysaa. kadibna waa diray. haddaad iyaga saa u daabano korkiisa linkiga korkiisa haddaan taabsano waa kana uu shaqeynaya, lambarkayga ayuu toos ku keenayaa. qaabka koowaad oo qaabkaas. qaabka labaad iyadana haddaan u guda galo application-ka ayaan soo dejisanay ayaan soo gelaynaa click to chat. kadib markaas sidaad tan usoo gasho halkan ayuu ku keeni doonaa. markaas sidaad tan usoo gasho waxaad ku dhufanaysaa qaybtaas. kadibna halkan ayaad ka baadhanaysaa wadanka aad joogto ayaad raadinaysaa. marka aniga haatan wadanka Ethiopia ayaan raadinayaa. marka Ethiopia waa kana Ethiopia ayaan soo qabsanaya. marka lambarkaaga ayaad halkan gelinaysaa. marka lambarkaaga sida taa u geliso kadibna waxaad ku dhufanaysaa qaybtaas. kadibna waxaad dhahaysaa share ayaad dhahaysaa. kadibna share ayaad kasii dhahaysaa. kadibna WhatsApp-ka ayaad taabanaysaa oo WhatsApp-ka ayaad ku share garanaysaa. kadibna qofka aad rabto inaad u dirto ayaad korkiisa taabanaysaa. tusaale aniga hadda qof ayaan raadinayaa, marka qofka ayaan ku dirayaa. kadib markaad sida tan usoo gasho qofka ayaad share ayaad ku diraysaa oo ku dirsanaysaa. haddaba linkiga korkiisa haddaan saa u taabano waad ujeedaa inuu shaqeynayo. haddaba saaxiibayaal sida taa ayaa loo sameeyaa. hadday tahay markii ugu horeysa soo booqatay kanaalkan, fadlan subscribe saar, notification-kana furo si muuqaal walba cusub kugu soo dhaco. sidoo kale muuqaalka like saar si uu gaaro dad fara badan. aad iyo aad baad mahadsan tahay. tan muuqaalkan iyo muuqaal ku xigan ka kulmayna waxaan kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.